سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القلصين: له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ilaahay wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa lays amray inay dadku la yimaadaan, waxa ahlu kitaabka la amray dhammaan wax allaala waxa koonka jooga wixii amar ahaan loo siiyey. ilaah wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin, lama amrin ilaa liyacbudu allaha, ilaa inay ilaahay caabudaan maahana subxaana wa tacaala. liyacbudu allah waxaa loola jeedaa inay ilaahay waxidaan, oy tawxiidkiisa qiraan, oo ilaahay keligii ay caabudaan. wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. jinni iyo insi lama abuurin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, ilaa waxaa loo abuuray waa cibaado, waxaa loo abuuray inay ilaahay caabudaan. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha, ilaahay oo la caabudo haddana cibaadadiisa wax loogu daro waa mamnuuc. ilaahay oo la caabudo haddana cibaadadiisa wax kale loogu shariig yeelaan la ogolayn. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha. marka laad caabudaysaan ilaahayna mukhlisiina, idinkoo u barax tiraya, idinkoo ikhlaas uga dhigaya cibaadada, saa markaa ku caabuda. mukhlisiina lahu ddiina, diinkana ilaahay qaalis uga dhigaya subxaana wa tacaala. macnaha hoggaansanka, isdhiibidda, amarka qaadashada, tala saarashada iyo wixii la mid ah oo dhanba mukhlisiina lahu ddiin. intaa kadib waxaa lays amray xunafaa'a, in dadku ay soo iishaan, macnaha xaa'imaailiin inay noqdaan kuwa ka soo iishay adyaan iyo diin walba oo baatil ah, una soo iishay diinta islaamka. diinta islaamka xaggeeda u soo leexday buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. xunafaa'a waxaa kaloo la amray wayuqiimu asalaata, inay salaada oogaan, inay salaada hagaajiyaan, inay salaada dukadaan, oo wayu'tu zakaata, zakadana ay gutaan, inay zakada markaa bixiyaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. kow waxaa la amray ilaahay keligii inay caabudaan, waa laa ilaaha, inay ilaahay subxaana wa tacaala u shariig yeelin, waa ila allah. waxaa la amray diin kasta oo baatila inay ka soo leexdaan. waxaa la amray inay salaada tukadaanay hagaajiyaan. waxaa kaloo la amray inay sakada bixiyaan. intaa marka laysku daro wadaalika diinu lqayima, taasaa diinka qayimkaa ee toosan ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wadaalika diinu lqayima, diinta qayimkee toosan. idan mar allaala marka salaada aan soo wadnay oo laga soo sheekaynayay, wuxuu ilaahay hadda tilmaamay uu yidhi wayuqiimu asalaata. ma dhihin inay salaada tukadaan, laakiin wuxuu yidhi inay salaada oogaan. iqaamad marka la yidhaahdo iyo waa la tukaday labay kala tahay. waa la tukaday waa qof si kasta isaga tukaday, ama ha xumaato ama ha fiicnaato, ama ha la ilaaliyo, ama waajibkeeda ha la fiiriyo, ama yaan la fiirinin, qofkaa wuu tukaday. amaa qofka la leeyahay salaaddii ayuu oogay, waa qof salaada waajibaadkeedii, arkaanteedii, tuma'niidadii, wixii ay lahayd oo dhan u kaamila laga wadaa. wayuqiimu asalaata, taasaa markaa loola jeedaa. sidaa darteed ayaa la rabaa qofku inuu salaada ula yimaado calaa wajhi alakmal, sida ugu dhammaystiran.
qofku haddii uu tukado oo sidiila wax la samaynayo, rukuucdii, sujuuddii, rabbi ikfirlii, istaaggii uu la yimaado, wuu tukaday. laakiin way dhici kartaa isagoo tukaday inuusan salaaddii oogin, isagoo tukaday in salaaddiisii lagu soo celiyo, isagoo tukaday inaan salaaddiisa la aqbalin. intaasoo dhan waa ixtimaal, waana dhici kartaa, waana shay suuragal ah. waayo rasuulku masaajid ka fadhiya sala allahu calayhi wasalam ayaa masaajidka waxaa soo galay nin la yidhaahdo khallaad ibnu raafic. khallaad ibnu raafic markuu masaajidka soo galay, meel gees ah ayuu 2 rakacadood ku tukaday, nebigana waa u jeedaa. markii 2 rakacadood uu dhammeeyey ayuu rasuulka u yimid. rasuulkuu salaamay oo assalaamu calaykum buu yidhi. nebigana salaanta wuu ka radiyey, waana ka qaaday. laakiin wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli. khallaadow bax soo duka ma tukanine. meesha waxaad ka fahmaysaa khallaad wuu tukaday, waxaad ka fahmaysaa khallaad wuu la yimid, waxaad ka fahmaysaa wixii salaad ah waa sameeyey. laakiin rasuulku wuxuu ku tilmaamay inuusan tukanba. wuxuu ku tilmaamay ninkii hadda salaada tukaday inuusan tukaninba. oo rasuulku wuxuu ku yidhi irjic bax noqo, fasalli soo tuko, fa innaka lam tusalli, adi ma tukanine. waayo salaad haddii la yidhaahdo wuu tukaday, laakiin ma tukanin. maxaa loo yidhi? waxaa loo yidhi salaaddiisa ma aha salaaddii la rabay, ma aha salaaddii ilaah subxaana wa tacaala aqbalayey, ma aha salaaddii la rafacaayey. wuu soo tukan ma tukanin, wuuna tukaday. ninkii waa baxay khallaad ahaa, 2 rakaco kaluu soo tukaday, waa soo noqday oo rasuulkuu u yimid, wuu salaamay. haddana nebiga salaantuu ka qaaday, haddana wuxuu yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli. bax soo tuka ma tukanine. waa mar labaad. labadii marna waa tukaday, laakiin nebigu wuxuu ku tilmaamay qof aan tukanin inuu markaa yahay. haddana waa soo tukan, wuu soo noqday. mar allaala markuu soo noqday ayuu haddana nebiga salaamay sala allahu calayhi wasalam. markuu rasuul ku salaamay ayuu haddana wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli. bax soo tuka ma tukanine. 3 mar ayaa ninka la celceliyey, oo mar kasta uu tukanayo, mar kasta uu tukadana waxaa lagu leeyahay bax soo tuka ma tukanine, irjic fasalli fa innaka lam tusalli. meesha marka waxaa laga tilmaamay oo laga faa'iidaysto laga qaatay, salaad haddaad tukato, salaaduna ay tahay mid waafaqi waysatii nebiga, inaad la mid tahay adoo tukanin oo kale. rasuulku mar 3aad buu ninkii ku yidhi irjic noqo, fasalli soo tuko, fa innaka lam tusal, adigu ma tukanine. ninkii 3 mar markiisaa loo celceliyey, oo mar kastuu tukadana nebigu uu leeyahay ma tukanin. markii dambe wuxuu yidhi yaa rasuula allah, waaladii bacahaka bilxaqi, rasuulkii allow macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye, saa si aan ahayn oon salaada u qurxin aqaana ma jiree, facallimnii markaa ibar, salaada igu tacliimi oo ibar. saasuu markii dambe yidhi ninkii. muxuu rasuulku isla markii ugu sheegi waayey? markii ugu horreeyey uu salaada xumeeyeyba muxuu ugu sheegi waayey ee uu u yidhi bax soo tuka ma tukanine? waxaa la rabay inuu diyaar noqdo, waxaa la rabay inuu diyaar u ahaada in la baro, uu asaga iskeeno oo arday uu noqdo. waayo isla markii kaalay salaad baa lagu baraa haddii la dhaho, waxyaabo fara badan baa laga yaabaa inuu ka shakiyo, waxyaabo fara badan baa suuragal ah in saysan saa u dhicin. yaa nebiga xikmooyinkuu isticmaalo ayay ka mid ahaan jirtay, ee uu dhihi jiray bax soo tuka adi ma tukanine. ninkii 3 mar markii la celceliyey uu yimid oo is yidhi bis waaye saa si kale maba u tukan kartide, nebiga ka codsa inuu ku baro. markaasaa rasuulku uu ku yidhi waaladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartaye, saa si aan ahayn oo aan u tukan aqaana ma jira itacliimi. rasuulkii ilaahayo, ninka waxaa lagu magacaabahaya ninkii salaadiisa xumaynayey. ninkii salaadiisa xumaynayaa markaa la dhahayey. intaa waxay ka dambaysay rasuulku wuxuu guda galay inuu salaada baro, inuu salaada u sheego, inuu salaada u tilmaamo, uu yidhaahdo saa iyo saasaa loo tukadaa. nebigu ninkii wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaa, mar allaala markaad rabta inaad salaada u istaagto, awal fatawadda, u soo weyse qaado, kamaa amaraka allah, sidii ilaahay kuu amray subxaana wa tacaala.
macnaha kayfiyaddii iyo qaabkii iyo sidii baa la rabaa in la baro. hadduusan qofku wax qubays waajibiyo uusan korkiisa saarnayn, waxa ugu horeeya waa weyseqaad, inuu sidii ilaahay u amray qofku u soo weyse qaato. akhiru zamankana waxaa imaan doonaa la yidhi dad weyseqaadkii ducada ku ciyaari doona. ducada habkii loogu talagalay hab aan ahayna way u samayn doonaan, weyseqaadkana way xumayn doonaan. markaasuu ninkaa khallaad rasuulku wuxuu ku dhahay u weyse qaado kamaa amaraka allah, sidii ilaahay kuu amray. see ilaahay u amray, idaa qumtum ila asalaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi. waxaad dhaqdaan wejiyaalkiina iyo gacmihiina ilaa marfaqaynkii xusullada laga gaara ama suxullada. wamsaxuu biru'uusikum, madaxyaalkiina iyo lugihiinana masaxa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. xaaladaas iyo sidaa laguu amray ayaad marka hore u soo weyse qaadanaysaa. weyseqaadka noocaasaad la imaanaysaa. rasuulku markuu noo sharxayay weyseqaadka wuxuu dhahay biyaha soo xaadirinaysaa. lowlaa an ashuqa calaa ummatii, ummaddaydu haddaysan dhibku ahaan lahayn iyo ama dadkoo dhan, waxaan amri lahaa inay rumaystaan cinda kulli wuduu, weyseqaad kasta agtiisa. riwaayadaha qaarkood cinda kulli salaa, salaad kasta agteeda. markuu qofku weyse qaadanayo waa loo sunneeyaa inuu cadaydo. nebigu aad buu u jeclaan jiray baa la yidhi rumiga. saa darteed ayaa abuu muuse wuxuu dhahay rasuulkan u soo galay asagoo ku rumaysanaya caday radbi ah oo qoyan, carabka cadayga darafkiisuna calaa lisaanihi, carabkiisa uu saaran yahay. wahuwa yaquul asagoo dhahaya kaannahu yatahawac, waxaad mooddaa nebigu inuu ismatajinayo. macnaha carabku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la rumeeyo oo loo cadayo. saa darteed baa ilkaha mar allaala markuu qofku rumaysto, rasuulkii baan arkay buu yidhi abuu muuse oo carabka darafkiisa carabka cadaygiisa darafkiisu saaran yahay. saxaabadu xataa waxay soo guuriyeen codkii ka soo baxayay rasuulku markuu rumaysanayay. buu markaa dhahay macnaha asagoo dhaho yatahawac, waxaad u malaysaa rasuulku inuu matagaayo, inuu hunqaacayo, ismatajinayo yaad markaa u malaysaa sala allahu calayh wasalam. marka taa qofku waa muhiim, wayna fiican tahay. hadduuse ka tago weyseqaadkiisa waa u jiraa. markuu qofku saa u rumaysto u cadaydo, gacmaha laga bilaabaa weyseqaadka 3 mara bannaanka lagu dhaqaa. haddii qofku uu rabo weel afuran inuu ku weys qaato, gacantana uu geliyo. haddiise tubiyo waxyaabo ay yihiin dhib kuma sugna, laakiin marka ugu horaysa gacmaha intooda calaacalaha ah ayaa la dhaqaa. faraha biyaha waa la gelgeliyaa. waayo ninkii saxaabiga wuxuu ku dhahay rasuulka isbiqi ilwuduu, weyseqaadka kaamil yeel oo xibnaha ku faajafaajo oo meel kasta gaargaarsii. wakhallil, gelgeli biyahana bayna alasaabici, faraha dhexdhexyaalkooda. wabaaliq fi listinshaaq, sandaarsigana ku xeel dheerow oo xoog sanka biyaha ugu jiid, ilaa an takuuna saa'iman, inaad sooman tahay maahane. qofka hadduu sooman yahay wuu sandaarsanaa, laakiin ma ku xeel dheeraanayo. waayo waxaa laga cabsanaa haddii asoo sooman xoog sanka biyaha ugu jiido, afkana wuu ku furan yahay, inay intay biyaha ku cararaan dhuunta ay tagaan, kadibna wisqaadku uu ka jabo. taasaa markaa andhee soonka uu ka jabo, taasaa markaa la diidaa. marka faraha dhexdhexyaalkooda biyaha gelgeli buu dhahay nebiga. intaa wixii ka dambeeya ma qofku wuxuu soo qaadanaa biyaha gacanta, waxaa ku xiga inuu luqluqdo uuna sandaarsado. luqluqushada waa biyaha afka inta la geliyo wax yar lagu wareejiye, kadibna lasoo daadiyo. 3 jeer inuu sameeyo sida ugu badan. hadduu ka yareeyo dhib ma laha. sankana uu biyaha ku jiido istinshaaqa la yidhaahdaa. waataan hadda soo tilmaannay qofku xoog inuu sanka biyaha ugu jiido. cudurrada iyo waxyaabaha badan ayaa ka baaba'aya, nadaafadna markaa waa helaya. weliba rasuulka salaada subax marka la weys qaadanayo aad buu u amri jiray sandaarsiga in lagu xeel dheeraado. ilaan wuxuu dhihi jiray shaytaanku wuxuu baryaa ee uu seexdaa calaa khayshoomihi, qofka sanqaroorkiisa. sidaa darteed mar allaala markuu qofku luqluqdo, sanna daarsado, wejigaa la dhaqaa. ballar ahaan waa meeshay tumuhu ka dhashaanay ka bilowdaan ilaa garka, carabna waa labada dhagood inta u dhaxaysa. saasuu markaa qofku dhaqayaa wejigiisa. wax la aqriyo ducaa ma jirto.
bismi illaahi yaa lagu bilaabaa. nawaytu farad alwajhi iyo nawaytu saan iyo xaaladaa ma jiro. bismi illaahi inuu qofku dhaho kadibna waysqaadka wado. wejiga markuu 3 mar dhaqo ugu badnaan, gacanta midigtuu dhaqaa ilaa mirfaqaynka sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. kadib gacanta bidixdaa ku xigta, madaxuu masaxayaa. wuxuu ka soo bilaabayaa meesha hore ilaa gadaal uu geeyo, kadibna waa ku soo celiyaa. qolaa waxay dhaheen gadaal baa laga soo bilaabaa, haddana waa lagu celinaa. labada xaaladba dhib kuma sugna. saa darteed hal mar ayaa la masaxaa adoon biyo kala doonaninna. labada dhagoodaa biyaha la geliyaa, labada faroodee sabaaxataynka gudaha. suulashan waxaa lagu masaxaa dhagaha bannaankooda. intaa markuu qofku sameeyo luguhu u soo gudbaa. wuxuu dhaqayaa lugta midigta ah ilaa anqowga laga gaaro ama qoobabka. wuxuu ku xijinayaa qaybta kale. saa darteed maalinta qiyaamo qofka waysqaadka meeshuu ka waysqaatay intuu gaarsiiyo ayaa loo qurxiyaa oo jijimooyinka dahabka loo geliyaa. abuu hurayra wuxuu dhihi jiray, waxaa la arki jiray asagoo markuu waysqaadanayo ilaa garabka dhaqa, lugahana ilaa jilbaduu keeni jiray. haddii la dhaho maxaa dhacay, wuxuu dhihi jiray rasuulku wuxuu yidhi qofka quruxda waxaa loo gaarsiiyaa maalinta qiyaamo meesha waysqaadka uu gaarsiiyo. saa darteed buu kor geyn jiray, meel kor ayuu markaa geyn jiray. waa suu markaa u fahmay. laakiin nebiga xaaladaasuu tilmaamay. qofkana waxaa la rabaa inuu ku kaamil yeelo, kuna xeel dheeraada keliya. maalin buu rasuulku dhahay, ma idin tusiyaa wax dembiga idinka tirtira, darajaadkiinan kor laydinkugu qaado? haabay dhaheen saxaabada. rasuulku wuxuu dhahay midda koowaad waa waysqaadkoo lagu xeel dheeraado cinda almakaarih, marka karaahadu jirto. qabowga daran markuu jiro qofku biyaha uu nacayo inuu waysqaadka si fiican u waysqaato. dembigana waa lagu tirtiraa, darajada jannadana koraa laysugu qaadaa. midda labaad rasuulku wuxuu dhahay wuxuu yidhi waa tallaabada masaajidka loo badiyo. qof kasta qof kale intuu ka guri dheer yahay wuu ka ajir badan yahay tallaabada badan. midda saddexaadna salaad oo salaad lagu suga buu dhahay. maqhrib baad tukatoo masaajidkaad fadhiisatay, waa sugtay, ama casr baad tukatay waxaa sugtay ilaa maqhribka, fadalikum alribaad, kaas waa xirxirnaan. oo waxay la mid tahay adigoo goobaha diinta lagu difaacaya ku jilib xirtay oo dhufayska markaa ku jira. saddexdaasuu markaa ku tilmaamay. lugta bidixda ah ayaa haddana la dhaqaa. cirbaha waxaa fiican in si fiican loo dhaqo, waayo waa amaakinta wasaqda ku aruurta. rasuulka sal alla alih wasalam baa saxaabadiisa meel u diray. mar allaala markii ay baxeen way ka hormareen. waxay dhaheen saxaabadii waxaana soo haleeshay salaadii, rasuulkuna waa naga dib dhacay. waqad ahraqtana, ayadoo ayna soo dabooshay wakhtigii salaada. waa naga daba yimid rasuulka, annagoo waysqaadanayna, lugahaynana masaxayna. nebigu cod dheer buu ku qayliyey asagoo dhahaya weyl iyo halaag wuxuu u sugnaaday lilacqaabi, cirbaha si fiican loo dhaqin. cirbaha amaakinta wasaqda aruurisa waaye. saa darteed baa rasuulku wuxuu amray in si fiican loo dhaqo. qofka aan si fiican u dhaqinna acqaabtiisii cirbihiisa weyl ayaa markaa u sugnaaday. fanaadaa ama wanaadaa biaclaa sawtihi, codkiisa kii u dheeraa buu rasuulku ku qayliyey, weylun lilacqaabi min annaar, weylun lilacqaabi min annaar, weylun lilacqaabi min annaar. 3 mar uu ku celceliyey rasuulka sal allahu calayh wasalam. 3 mar ayuu markaa ku celceliyey. 3daa mar kadib waxaa intaa markuu qofku sameeyo kadib waysqaadkiisii waa u taam. marka kamaa amaraka allah marka la leeyahay taasaa markaa loola jeedaa. taasaa markaa loola jeedaa oo qofka waa inuu habkaa nebigu tilmaamay u weyse qaato. cifmaan intuu weyse qaatay sidii hadda aan soo tilmaannay kadib ayuu yidhi rasuulku wuxuu dhahay qofkii u weysqaata naxwa wuduu'i haada, weysqaadkaygan oo kale, kadibna 2 ragcadood ku tukada asoo naftiisa u sheekaynin, dembigiisa wixii hore waa loo dhaafaa. qofku markuu weysqaadka saa u dhammeeyo u kaamilo, ducaa jirta markaa la akhriyo, ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluhu. waxaa lagu siyaadiyaa baa la yidhi allahuma ajcalnii min altawaabiina wajacalnii min almutatahhiriin. qofkii intaa sameeya ducadaana akhriya 8 jana albaabahoodaa loo furaa, ti allaala tii uu doono ayuuna markaa ka galaa. intaa waxay ka dambeeya salaadiia markaa loo gudbayaa. qofku wuxuu istaagayaa weyse qaadkii markuu dhammeeyey,
meeshii markaa ku tukan lahaa. rasuulkuna ninka saasuu markaa usii baray. weli waxaa la tilmaamaa qofku markuu wisqaadanayo gacmaha uu dhaqo, cidyaha ayay ka daataan ama biyaha dhibicda ugu dambaysaa dembiguu gacanta ku sameeyey. wejiga markuu dhaqaayo dhibicda ugu dambaysay la daataan. gacanta markuu dhaqo wixii dembigu ku sameeyey dhibicda ugu dambaysay ka baxaan. alxaasil ilaa xubnahoo dhan nebiga uu sheegay. kadibna wisqaadka wuxuu ka baxa asagoo naqi ah oo nadiifka ah dembi. kabacdin wuxuu istaagayaa salligii meeshuu ku tukan lahaa, wuxuu qaabilayaa qiblada. wixii ka dambayna waa arki doonaa. wabiاllaahi towfiiq, wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam.